السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موقال عصب موقال كينا مانتو وحان ugu hadli doonaa lacagta uu Kinga Cayda ka sameeyay YouTube-ka. Sida aan wada ognahay, Cayda wuxuu ka mid yahay YouTuberada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. Sababtana ma garanayo. Maanta waxaan isla eegi doonaa bishii inta subscribers ee kusoo beertay YouTube-kiisa iyo lacagta uu ka sameeyay YouTube-ka. haddaba haddii aad channelka cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad channel subscribe saarto si aan u gaarno hadafkeena. haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta Cayda total grade-kiisu waa B. Total grade waxaa lagu qiimeeyaa qofka heerka uu ka taagan yahay YouTube-ka. haddii uu A haysto waa darajada ugu dambeysa oo waa A. Cayda hadda wuxuu marayaa darajada labaad oo ah B. qofka markii uu gaaro B waa darajada labaad, markii uu gaarana A waa darajada ugu dambeysa ee wax lagu qiimeeyo. Cayda 59,000 oo qof ayaa bishii kusoo biirto. 553 muuqaal ayuu soo geliyay. 627,000 oo subscribers ayuu ka wataa. Views-kiisuna waa intaas. Channel type malahan, wadana kama duwan gishana. March 11-keedii 2022 ayuu YouTube-ka kusoo biiray. bishii views wuxuu helaa gaaray ilaa 7,859 milyan ayuu helaa. haddaba haddii aan fiirino lacagta uu ka sameeyo, lacagta uu Cayda ka sameeyo bishii waxay gaaraysaa $2,000 ilaa 31,400 oo dollar ayuu kaliya bishii ka sameeyaa. halka sanadkii uu ka sameeyo lacag gaaraysa 23,600 oo dollar ilaa 377,200 oo dollar.